waan dhowahay magaalada marka go'doon aan caadi ahayn ay ku jirtay laakiin hadda alxamdulillah mas'uuliyiinta magaalada marka ku sugan anagoo ku hadlaya magaca wasiirka hoggaanka wasaaradda arrimaha gudaha ana xildhibaan koonfur galbeed aad iyo aad u degan tahay magaalada marka marka magaaladu bil iyo in ka badan bay go'doon tahay idinkuna halka waad ku sugan tihiin marka maxay ku dhacday in inta go'doon magaaladu ku saato wasiir magaalada go'doon waa ku jirtaa laakiin hadda alxamdulillah ilaah waa noo gargaaray ganacsatada markaba dowladda federaalka iyo tii koonfur galbeed waxay macnaha bulshada inay u adeegtahay diyaar u tahay ka maamul ahaan waxay jeceshahay maamulkii inay u adeegaan macnaha bulshada ku nool degmada marka waxaa loo fududeeyey markab oo kusoo xiranaya duleedka degmada marka aarjaale marka markabkaas halka cuntada gaarsiinaya ma idinkaa fududeeyey mise ganacsatada ay arrintaa ka shaqaysay markabkaas waxaa fududeysay iyo dooman oo yaryaraa jira oo dowladda ay fududeysay mas-uuliyiinta dowladda ay fududeeyeen ka sokow in cunto magaalada lagu gaarsiiyo dhanka badda maraakiib dooyin loo isticmaalo laakiin weli dadka ku nool magaalada dhibaatay dareemayaan soo maadaama magaaladu ay go'doon tahay annagu haddaan nahay mas-uuliyiinta koonfur galbeed haddaan nahay annaga shacabka magaalada marka degan waxaan u fududeynay ganacsatada inay ku adeegi karaan xeebahaas si loo fududeeyo macnaha ganacsatadooda xeebaha qudhooda khataraha ka imaan kara saban waxaan xasuusanaya in shabaab oo kale doon ay weerareen oo dad kalumaysataa waxyaale kasoo gaareen khataraha ka imaan kara qudhooda miyaa laga baraandegay wallahi xeebaha kolley dadka hadda ganacsatada dooman badan a imaadeen sida hadda maciishada sidii hore maahan waxaa imaada shidaalkii a imaada sokor bur saliid kulli waa la keenaa dhowr maraa la keenay waadna maqasheen waadna aragteen haddana shalay waxaa imaaday markab weynaa joogo oo ganacsatada xitaa waxay u saarneedeen intaasoo dhan waxaa fududeysay dowladda mas-uuliyiinta dowladda wasiir marka laga reebo in markab cunto ah lagu gaarsiiyo magaalada marka laakiin adeegyadii yaraa sida khudaarta iyo wixii kale oo dadku iskaga gudbi jireen magaalada waxaasoo dhan weli waa culeys jira soomana dadku ay dareemayaan wallahi magaalada marka horta waa culeys waa iska jiraa meelaha qaarkood waa iska xiran tahay cid ay ka qarsoon tahayna malahan laakiin dowladdana sidii bulshadaas loo adeegi lahaa way ku tala jirtaa haddii ilaah yiraahdo waqtiyada soo dhawaado alla idmo insha allah waa furmi doontaa laakiin magaalada marka hadda anaa ku sugan dhibaato saas u baaxad weyn horta kama jirto aad iyo aad ay u degan tahay maciishadeedana hadda macnaha sida muqdisho wallahi yani haddii dhinaca loo fiirsho aad iyo aad ay u degan tahay jawiidna waa iska caadi qudaartana waa heshaa adigoo wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha magaalada ku sugan oo maamulka koonfur galbeed ah sidoo kale mas-uuliyiin badan baa ku sugan ciidamadii waa ay joogaan maxay tahay wax idinka ku risaagsan in magaalada go'doonka laga qado wasiir wallahi taas arrin ciidan u taallo waay anigu macnaha taas waa howl ciidameed waay laakiin magaalada go'doonka in laga qaado dowladdii shacabka ay ka turjumaysaa shacabkeedana waa ka warqabtaa kulley dhibaatada ay ku jiraan laakiin haddaba macnaha waxay u fududeysay dowladda in macnaha markab iyo dooman in loo adeegayo shacabkii la gaarsiiyo haddana kulley talay ugu soo maqan tahay shacabkeeda dowladda adiga iyo weliba mas-uuliin kale waxaa booqateen degada macmalka ceel jaalla ku taala ma halkaabaa meesha cuntada iyo maraakiibtu ay kusoo xirtaan wax laga soo dejiyo meeshana waa laga soo dejiyaa qolada amazon waa kasoo degsataa dekeda markana waa kasoo degsadaan markana macnaha meelahan xeebaha markana waa kasoo degaan weeraan dhowr dooban ay imaato mid dowladda ay ku deeqdo ganacsatada oo aan xitaa lacag la-aan loogu qaado free iska ah oo shilan laga qaadan oo dowladda ay ku caawiso ganacsatadana macnaha mar walbana waa ugu baaqnaa ninkii ganacsi ah oo xoolihiisa macnaha wax soo iibsada si loogu fududeeyo dowladda macnaha waxay u sameysay doon oo u adeegta bulshada dekadaas marka macmalka si toos miyay u shaqeynaysaa oo dayactir miyaad ku samaysan mise waa un iskaga meel gaar ah
والله معمل هدii la dhaho waad garan kartaa laakiin dayactirna waa kulley hawsheeda waa lagu jiraa laakiin waa shaqaysaa markabkaas waa soo xirtay dooma kalena hadda waa joogaan mar walbana waa imaadaan maalin walba waxa la soo galaa haddana dhanka qudaarta markaan kaga hadlana islaama oo ku adeegta dushooda ku keensada iska jirta qudaartina waa la helaa wax oo ka maqan hadda magaalo marka ma jiraan sida haddaan qiyaasaya waay wasiir madaxdii koonfur galbeed baad ka mid tahay wasiiradooda laakiin gobolka oo dhan caqabadaha ka jirta awooddii shabaab weli way muuqataa soo ma muuqanayso istaraatiiji xumo iyo qorshe xumo maamulka ka dhex jira oo wax laga qaban lahayaa xaaladda gobolka wallahi waad garan kartaa istaraatiiji xumo ma jirto dawladda ma ka gaaban hadda aniga waxaan ka tirsanahay magaca inta aan ku taaganahay dawladda koonfur galbeed waa dadka shacabka inay wax la qaybsadaan ay jecel yihiin dawladdii shacabkeeda waa ujeedaa meel walba ay dhibaato ka jirtaa laakiin shacabkeeda wadada macnaha wax walba waa inay u qabato waa jeceshahay dawladda diyaarna waa u tahay dhib iyo dheef inay la qaybsadaan waxaad dareemi kartaa ninkii wada xiran doon ninkii wax usoo marsiiyo meel u keeno shacabkeeda inay ka wada qabto hadda aniga waxaan ku suganahay meesha waa xiran tahay laleeyahay shacabkii inaan ka turjumayna dawladda koonfur galbeed ahaan waxaan u taaganahay dadkii shacabkii aan ku dhex jiraa waxaan usoo aaday inta waxay tahay dhibaatada iyo bulshada inaan la qaybsado dareenkooda hadii ilaahay waay inta magaalada ku sugantaha marka waxyaabaha ugu waaweyn indhaha ay qabteen oo caqabadaha magaalada ka jirto oo dadkuna ay wajahayaan hadda hal ilaa noo sheegto wasiir runtii magaalada oo ciidamada khayr allaha siiyo 14 Oktoobar ay xoreeyeen waaye qoladii shabaabtii waa laga saaray laakiin magaalada burbur waa ka muuqda magaala hadda u baahan dib u soo kabanayso waa sida hadda iskuulaadkii dhibaato ka jirta waxaa kale dhibaato ka jirta waxbarashadii iskuulaadka waxaa kale dhibaato ka jirta caafimaadkii waxaa kale dhibaato ka jirta wadadii oo geed raambu ama geed yahuudiga loo yaqaan dhibaato ka jirta ka taagan laftigeeda waxaa kale dhibaato ka taagan tahay bacaad oo xiray magaaladii kulley magaaladii hadda waa dhismaysaa kulley hadeer waxaan noo imaadeen hay-adaha noo imaadeen waxayna hayaan shaqo ay ka hayaan dib u dhiskii ay ka hayaan hadda soolaradii hadda meel waxaa lagu soo xiray dhanka ceel jaalle ilaa iyo wadooyinka lagu soo xiray haddana waxaa la gelinayaa kulley tvdan waadna ka arki doontaan hadduu alla idmo istaraatiijiyada magaalada marka wadada laga soo gelayna hadda soolaraha lagu xiri rabaa hadduu alla idmo saacadaha soo socda hadda caawa waxaan ka imaanaa ceel jaalle aan ka nimid soolaradii hadda waa la shiday haddana waxaan rabnaa magaaladii markaa hoolka ay ka socotaa bulshadii waa loo adeegayaa waay ugu dambeyn marka magaaladu dabcan dagaal qabiileedyo iyo wax baa ka dhidhici jiray burbur xoogan baa magaaladu ay soo gaaray sanadihii ugu dambeeyay hadda marka waxaa leedahay wasiir kabashay sameynaysaa magaaladu sidii hore maahan magaalada wax dagaal qabiileed ka jira malahan magaalada dadkeeda hal faray noqdeen waa heshiiyeen waxaas waa dhamaadeen xalal laga gaaray dadkii sida hadda isku dhexgalaya hadda aragtid sida isku jecel yihiin hadda aragtid waad yaabaysaa wallahi maasha allah aad iyo aad dagaal qabiileed kama jiro dadkii hal far iyo faraanta ay noqdeen hal cadow ay yeesheen dadkii ummadii dhan bulshadii hal meel ay noqdeen